حقها وراح حقها تعصاك حقها وراح هي طابو خايسين وكعي لما يا طابو خايسين وكعي سهل شوي annagu waanu magacaawinay dadka jilicsan iyagaa noo marka idinka yaqaano dadkina jilicsan guddi sameeyna guddidaasi waxay ka mid noqonaysaa assalaamu halkan waxa la yiraahdaa habaas weyn tuulooyina waxa uu xiga magaalada Bali Darab magaalada Cabdalla Guran magaalada Geeldiis magaalada Bali Sheekh tuuliyahan magaalada Bali Caraale magaalada la yiraahdo ina Bali Sahel intaas tuuliyahan inuu xiga ilaa saacad iyo googo yarbad ayaa lugtu socota inta ku sheegay reer habaas weyn iyo saaka wixii dalkan gaagaarkeedaba aad baanu wallahi xoolo ay uga bixin u dhibaataysan dad jilicsan iyo dad saaka aan xooli waxba ku hadhiniyo dad waxaan ku iri dikadun cagaa kula jira dirkaba waanu leenahay xanuun baa ka daba yimi abaartii xoolaha imaka dadka ku dhex jira aad u haya wax guriga jooga oo miyiga jooga wax magaalada jooga wax la qaado xanuunkaasi uu noo dheri xoolo ka baxa kaasi waa noo dheri reerahan anagu haddaan qiyaasay haddii la koobiyo horta waa 200 oo reer inta imaka aad inagu wareegsan horta dadka imaka inoo dhow dibadaha yaal wax alla xoolo haystaan ma jiraan dhulkii xoolo kaga dhintay ay ku baqtay biskiyaal بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا رمضان وشانية طبعا سنة كواكونا فربقل سديدية صدن هجرية بش اللي حاديوات طبعا ولا بدا كون إيو تضبية طبعا وحنو كسوانا هي قبل كداد مراد وانو صورة فني حرونتا قبل كاسي وانو صورة فني أود وينه وحنو لنا كونفور وقصب حني أود وينه لبية صدن كيلومتر وحنو توقنا تولدا هباسوين waxaa halkan taagan odayaasha tuulada Habaas Weyn ragoodii iyo dumarkoodii طبعا waxaynu ognahay inay abaar saameysay guud ahaan dalka marka raadkii abaarta ayaa jirta barnaamijkii ololaha kaalme kuwan ayaanu halkan keenay iyo inaan muxuu ahaayay soo gaarsiino kaalmo in badan baanu iswareysanay ehelada tuuladan waxaanu ka codsanaynaa inay soo saaraan dadka jilicsan dadka dan yarta waxaanu ka fursan weynay ama laga maarmaan waxay noqon weyday inaanu sameeyno xubnahan halkan taagan inaanu guddi uga dhigno oo aanu ku wareejino lacagta maanta aan wareejinayna waxaanu ugu tala galay 44 qoys oo min $50 aan ugu tala galay qoys oo dan yara qoyskiima inuu $50 qaato lacagtaas waxay noqonaysaa $2200 lacagtan waxa soo diray dhalinyarada Hindiya wax ku soo baratay ee reer Gadar dhalinyarada Hindiya wax ku soo baratay aqoon-yahanka Hindiya wax ku soo bartay ee reer Qatar ka shaqeeya dadkooda ayay ugu tala galeen inay garab istaagaan iyaga iska soo ururiyay marka waxay yiraahdeen lacagta meel ku haboon gaarsiiya annaguna waxaanu soo soconay intaasaanu soo soconay masaafada inta leegayeen soo soconay waxaanu sinay dad baahan dadka reer miyiga gaarsiiya lacagta ay soo direen iyagu waxay ahayd laakiin maanta annagu qoladan waxaanu siinaynaa 2200 maxaa haray $180 $180 waxaan ugu tala galay gaariga aanu soo karaysanay Langaruuserka iyo shidaalkiisa iyo wixii ku baxayay safarka ayaan ugu tala galay oo aan inaanu ka jarno iga gudoon lacagtaas waxa weeye 2200 inta jilicsan ee magaaladana joogta dabada waxa weeye waxa jira reer miyi ku hareeraysan magaalada
waa 2,200 dollar haddii ilaahay laga helo waxaanu siinaynaa dadka ayna yidhaaheen siiya 44 qof oo ah dadka danyarta bad ma santiin intaas ayaan muxuu ku soo afmeeraynaa socdaalkii aan ku soo gaadhnay tuulada Habaasweyn ee gobolka Daad Mareed gobolkan oo magaca ka qaatay mareerka gaagaaban ee daadku dusha uu ka maray halkan waxaanu sheegnay waxa halkan ku sugan in kamida dadka deegaanka aad iyo aad bad ma santiin waxa runtii na tilmaamay oo aanu ka soo kaxaysanay magaalada xarunta gobolka Daad Mareed xildhibaan maxamed fooxaale oo na soo tilmaamay oo isaguna soo tilmaamay isaga meeshan isaga wadada muxuu ahayna tusayay xildhibaan adiguna ereyaaga anugu tacwiidu baan ku jiraa marka imika oo kale dee laga bilaabo waayo intaasan dee u soo soconay maalin walbana waa u taaganahay kaalmee kuwan idinkana waxaan ka baryaynaa ilaahay xasanaad khayr qaba inuu idinka siiyo كلي ما نهين برامج سيدو كلا waxay igala shaqeynayay saaxiibaday diiriye jaamac cabdi saciid maxamed cabdi cabdiqaadir cismaan dubad iyo maxamed joker waxaana idila socodsiinayay anigoo ah cabdi malik sheekh musaal doon wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh